magacayga waxa la yiraahdaa Mustafa Ali Ducaale waxaan ka socdaa sectorka xoolaha marka xoolaha laga hadlayo saddex shay baa laga hadlayaa waa caano in laga helo iyo in hilib laga helo iyo in lacag laga helo oo la dhoofiyo marka qaybta caanaha oo muddo 12 sanadood aan ku hawlanaa inaan wax ka iraahdo ayaan u soo kacay meel fog baan ka yimi geel baan iska raacanayay markii la yiri meeshii waxa lagu hadal hayaa xoolihii iyo geelii baan damcay inaan wax kelmad ka iraahdo waxa kale oo matalaya urur la yiraahdo geel jire oo xoolaha muddadii 12 sano u dambeeyay ka shaqeynayay marka barasho wanaagsan isbedelka ama hayaanka muddada dheer soo socday ee 10 sano ka badan waxaan filayaa dad badan oo idin kamid ah waa dareemay magaalada Hargeysa haddaad ku wareegto oo wadada 200 aad marto wadada masalahana aad marto meel kasta xirgeel baa ka samaysan caano geel baa lagu iibinayaa waxaan ku faraxsanahay kuwa badan oo macaamiishaydii kamid ah halkan inay fadhiyaan 15 sano 12 sano ka hor ma jirin waxna ma jirin marka geel jiruhu waxay ahayd gabay geel lagu amaanayo inuu tiriyo laakiin kelmad aan dawladeena uu ka soo xigtay baan halkan ka oranayaa bulletin-kii ugu dambeeyay dawladda 2021 waxa ku qoran inaynu soo dhoofsanay 14 milyan oo kiilo oo caano boora iyo 6 milyan oo litir oo ah caanaha ku jira qaraadista ee lagurka ah lacagta halka markii aan isu geeyay lacagta ku baxday waa 80 milyan oo dollar waa 2021 waxa laga yaabaa labadii sano ee ka dambeeyay inay ka sii korodhay oo hadda 100 milyan ay marayso inta hadda ogaataan ayaan darada laga xanuunsanayaa waxa weeyaan waxaanu nahay dalka xoolaha ugu badan leh waxaanu soo dhoofsanaynaa caanihii ugu badnaa ee dal soo dhoofsado anigu markaan garaadsaday laba shay baan xasuustaa waxaan xasuustaa caano booraha dalka yimaada laba brand buu lahaa midna Nido baa la oran jiray midna Costa la oran jiray imaka nin kastoo ganacsaday intuu cararay ayuu inantiisii curad magaceedii ayuu daasada caano booraha ku soo qoray markaas waxaad ka naxaysaa waxa wadanka imanaya value added ka marka laga hadlo cudurrada laga qaado caanaha aan la soo waaridayo iska soo daaweynteedu lacagta ku bixi karta cid ay maartay meel ugu qoran tahay ama cid ay u qorshaysan tahay ma jirto inta waxaan ku darayaa dadka ganacsatada ah ee waxa soo dejinaya waxa u furan inay xoolo dhaqaan oo ay shaqo abuur u sameeyaan dadkii gudaha oo caafimaadkii bulshadu kor u kaco boqol iyo siyaado qof aynu ku fadhinaa haddaan imaka idhaahdo saakaya markuu quraacanayo caana soo cabay farta ma taagi karaa waxaan filayaa inuu yar yahay anigu qurbaha ma tagin laakiin dadkii ka yimi waxay og yihiin qofku marka uu subaxii quraacanayo haddii aanu caano ku darin ama ilmaha yar koraya aan la siin caano in wax weyn ka maqan yihiin garaadkiisii koriinkiisii lafihiisii iyo garashadiisii intaba markay saas tahay waxaan boorinayaa dawladdu siyaasad cad inay ka yeelato in la dhiirigeliyo maadaama laga hadlayo isku filaansho cunto laga hadlayo in wadanka laga soo saaro caano ku filan waxa kale oo xasuustaa beegii hore Hargeysaan ku dhashay joogi jiray reer kasta caanaha uu isticmaalayo isaga lahaan jiray islaamaha riyo raaci jiray magaalada koonaheeda loo saari jiray 6 galabnimo la soo celin jiray kadibna reer waliba cadayskiisa iyo caanaha halkaas u keeni jiray imakana waa waxa ay sheegayaan meesha ka muuqda barnaamijkan ku saabsan isku filaanshaha Somaliland waa inkasta oo inankii faahfaahinay uu yiri waxba la idin weydiin doonaa haddana markii sharaxaadda waxa ku jirtay 65,000 oo qoys ayaa barnaamijkan gaari doonaa 18 milyan waxaan u qaybiyay 65,000 oo qoys marka laga reebo maamulka iyo lacagta kale ee ku baxaysa casuumadaha dee beer kasta waxa gaari doona $120 sidaas qayb sax ma aha qayb aqliyana ma aha annagu markaanu nahay dadka ka shaqeeya xoolaha ee doonaya in dalkan laga soo saaro caano ku filan waxyaalaha aanu in badan ka fikirayna waxa kamid ah in la sameeyo warshad weyn oo calafka soo saarta
warshadaasi kadibna qof waliba imka dadka halkan fadhiya waa dadkii elite-ka Soomaaliland ama waa dadkii la naaman odhan karaa nin waliba guri buu ku jiraa dayr leh marka warshad calafka la sameeyo sacbaad ku xiranaysaa xagga dambe ama laba halaad baad keensanaysaa caanaha aad u baahan tahay halkaas ka soo saaraysa waxa jira wacyigelin la'aan oo bulshadeenu wacyigooda aad buu u hooseeyaa niman jaamacada ka baxay oo dhalinyaro ah oo aan maaragtay caanaha booraha iyo caanaha xoolaha ay isugu mid yihiin waan arkay waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan rajaynayaa barnaamijka dadka ka faa'iideystay inaan noqono waxyaalo waaweyn oo marka 6 sano dhamaato la taaban karana inay ka soo baxaan oo aanay inaga dhamaanin lacagtaasi shirar iyo tababaro iyo majarafado iyo waxyaalo yaryar in wax weyn laga fikiro oo raadkeedu waxa kale oo maaragtay aan rajaynayaa inaan lacagtaasi isu bedelin baabuur iyo guriyo hargeysa laga dhiso ee ay noqoto lacag gasha bulshada meeshii loogu talagalay mid soo istaagtay waa ka baxaya waxaan ku gabagabeynayaa Allah ya xawna xariistay adraawi baa wuxuu yiri inta maanku gaajaysan yahay guuli waa wali Somaliland inta askariga iyo ninka beerta ka shaqeeya iyo ninka xoolaha ka shaqeeya aanay ahayn kuwa ugu mudan guuli ma dhawa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان داوديل waxay la jooga Mustafa Ali Ducaale oo kamid ah dadka xoolo dhaqatada ama dadka xoolaha gacanta ku haya Mustafa si gaar ah waxa uu uga warhayaa geela oo runtii uu kamid yahay dadka ka shaqeeya ama urka geel jira ka tirsan Mustafa waxa jecelahay barnaamij ku soo bandhigay ama ku qayb galay barnaamijkii lagu daafurayay qaybta mashruuca qoodinta mashruuca kobca qoodinta iyo sidoo kale deegaanka ayaa Mustafa waxaan jecelahay in wax ka weydiino bal barnaamijka maanta uu ka qayb galay waxa ku soo bandhigay cilmi baadhisyo ay sameeyeen iyo xogaha soo ururiyeen oo ku taxalluqda waxa soo saarka dhinaca caanaha xoolaha ee waddankeena iyo sidoo kale caanaha dalka dibadiisa inooga yimaadaan daawada ma qiyaasi kartaa xaddiga caanaha lacagta inaga baxda ee dalka dibadiisa iyo xoolaha tirada leeg ee nu haysanay Soomaaliland haysato ee hodankeena ku nahay waxaan doonayaa Mustafa in bulshada la wadaago lacagta inaga baxda xoolaha tirada badan ama caanaha tirada badan ee dibadda laga keenayo Jaafar waa mahadsan tahay Jaafarow aad baad u mahadsan tahay walaalow si harta halka aan ka sheegayba ceebta weyn ee in haysata bulsho ahaan iyo qaran ahaan waxa weeye inagoo xoolihii ugu badnaa leh inaynu caanihii ugu badnaa soo dhoofsano yani intaasaa inoogu filan waxa kale oo iyaduna jirta caanaha laynoo keenayo ee la yidhaahdo caano booraha ah inaan la garanaynin tayadooda waxa kale intaa dheer inagu inta adduunka waxa la 15 milyan oo neef oo geela ba ku nool in ka badan kala bar Soomaalida leh Somaliland tirada geela ay leedahay iyo lo'da ay leedahay hadii ay isku filaysiiso caana dibadda laga ma keenayo 14 milyan oo kiilo oo caano boora ah ayaa sanadkii 2021 soo galay dalka waxa kale oo soo galay 6 milyan oo litir oo caanaha liquidka ah ama caanaha la biyay ee karaatonta ku jira dhaqaalaha ku baxay marka inta la isu geeyo 80 milyan oo dollar weey waa sanadkii 2021 hadda waxa la filayaa inay kor u kacday oo laga yaabo inay 100 milyan gaadhay marka caanahaas waxa loo baahan yahay in dadku ay fahmaan qof kasta oo ganacsada ah oo caanaha ka shaqeeya ama soo dejiya waxa u furan inuu xoolo dhaqo caanihii soo saaro midna Jacfar ogow caanuhu ma aha sida birta ma aha sida looxa ma aha sida qalabka gaadiidka ma aha waa shay aad iyo aad u sensitive oo la cabayo marka in caano lagaaga keeno dal intaas oo kun oo kiiloomitir ku jira caafimaadka bulshada wax weyn bay yeelaysaa anagu waxaan dhiirigelinaynaa in ganacsatada caanaha keenaysa ay xoolaha dhaqaan oo shaqo abuur u sameeyaan dhalinyarada dalka joogta dawladuna ay lacag adag aanay inaga bixin aynu isku filaansho gaarno caafimaadkeenuna kor u kaco Mustafa marka laga hadlayo imka caanaha xoolaha kala caanaha dibadda la inooga keeno caanaha dibadda la inooga keeno xanuuno badan dadkeenu ka dhaxlaan sida Ethiopia imkaan ka arnay hay'adda tayada waxa caana badan oo kuwa daasadaha bay ka mamnuucday in Ethiopia ay soo galaan bal waxaad sawirtaa ama bulshada sawirad ka siisaa tirada dadka inta caafimaad darro ku dhacday waddanka dibaddiisa caafimaad u doonanaya xanuunada ugu khatarta badan midna kansarka ku jira iyo xanuunada la midka Jacfarow horta
adduunka waxaa jira wax la yidhaahdo life spanka bulsho kasta waa la qiimeeyaa dadka bini aadanka imsay noolaan karaan bulshadaas celcelis ahaan adduunka waxaa ugu sarreeya dalka Japan 82 sannadood ayaa cumriga dadka marka la isku celceliyo ay noolaadaan innaga waxa la qiyaasayaa 44 sano 45 inay tahay maalin kasta baraha bulshada markaad aragto waxaad arkaysaa nin dhalinyaro oo 20 jira ama 40 jira ama 30 jira oo lagu leeyahay dhintay marka lagu daro kuwa shilalka ku dhintay waxaad arkaysaa daatadan ay qaramada midoobay soo saartay ee odhanaysa 44 sano celceliska bulshada Soomaalidu weeye inay wax ka jiraan taa waxa dheer sidii halkii aan ka sheegay golihii markii dhaweyd markaynu yaryareen waxaan arki jirnay caana boodho la niido iyo koosto imaka maxaa dhacay nin waliba wuu cararay lacag buu qaatay inantiisii curad buu ku soo qoray magaceedii waa Nuura waa Fahma waa Samiira waa Bilaahi Kajini marka dawladda Itoobiya waad arkaysaa maalmo dhaweyd caana badan oo caana boodho ah bay mamnuucday waa laga yaabaa labada brand ee u tagay oo kaliya inay yihiin laakiin dalkeena maalin dhaweyd baan dukaan galay 26 nooc markaan marinayay ayaa lambarkii iga khaldamay marka ayaan daro weyn baa jirta ceeb waxa inoogu filansan markii hore sheegay inagoo leh xoolihii ugu badnaa inaynu soo dhoofsano caanihii ugu badnaa oo waliba caana boodho Mustafa ma nagu filaanayaan caaneen xooluhu haddii aan iska joojino caanaha dibadda hayo way naga badan yihiin waynu dhoofin karnaa Jaafar oo litirka caanaha ay geela adduunka waxa laga siiyaa $25 inaguna waxaynu siinaa $1 haddii bulshadu u jeesato wax soo saar oo nimankan ganacsatada ah ay xoolaha dhaqaan dhaqaale aan imika la fili karin ayaa soo baxaya dalkeena ka dhargaya dibadana waa loo dhoofinaya waana wax loo baahan yahay marka taasi shaki ma leh yani markaynu 3 milyan oo neef oo geela leenahay caanaha laga soo saari karaa inta inaga bataan meel dibadda u dhoofinayna aad baa mahadsantahay